Somaliland waxa dhacaya dabaylo kala irdheeyay shacab maamul xumo sagaal jira soo weeshanayay waxa jira dhibaatooyin dad sameey ah man-made disaster oo isseejiye bulshada waxa taagan xaq la'aan xuquuqliye iyo cadaalad darro aan lagu ahaan karin muwaadin Somaliland waxa sii xoogaysanaya dhaqdhaqaaqyo iyo kulamo darafka dacalka aloosan kuwaas oo bulshadu wax iskaga weydiinayso su'aalaha ay ka mid yihiin Somaliland maxaynu u samaysanay quwadii Afrikada Madowga Jamhuuriyaddii Soomaaliya maxaa loo burburiyay hadiiba ujeedada Somaliland u samaysantay ay ahayd tirsiga cadaalad darrooyin isbiirsaday awood qaybsi kala sarraysiin bulsho caburin dadweyne iyo tacaddi lagula kacay qaar ka mid ah beelaha Somaliland gaar ahaan beesha dhexe kuwa loogu yeero maantay ka daran tahay maxaa laga kororsaday qaxi aasaaskii go'aansiyada Somaliland oo danta ugu weyn ee laga lahaa loo arkayay inay ahayd bulsho cadaalad darro iyo xukun kali talisnimada ka soo doogtay inay xukun sax dhistaan kana badbaadaan dulmi iyo cadaalad xumo dhexdoodana ku kala nabad galaan rajada iyo filashaduna ay ahayd in dhismaha Somaliland toodu noqoto mid si kasta uga duwan kii wax laga tirsanayay oo la kala sarreyn la kala mudnayn lana kala lahayn oo la wada leeyahay isweydiintuse waxay tahay nidaamkii Somaliland loo bixiyay ma noqday mid cadaalad ku dhisan dulmigii dagaal ma lala galay ma lagu kala nabad galay ummadiisa cadaalad ma lagu dhaqay dadweynaha Somaliland waxay rajeynayeen inay noqon doonaan ummad ku noolaata dawlad ku dhisan isku dhaqa sharciga iyo sareynta dastuurka waxay filayeen in dawladoodu noqoto mid si walba looga ilaaliyo wax kasto dheeli ku keeni kara ayna noqoto nidaam bulshadu wada leedahay oo lagu wada baraaro hayeeshee dhammaan aragtiyahaasi waxay noqdeen filashooyin saqiiray rajooyin bariiqday riyooyin la lumiyay waxana dalow laga tuuray dhammaan heshiisyadii bulsho waxana nidaamkii la wada yeelan lahaa uu noqday mid laasim qaraabo kiil caburin beela gaar loo faquuqo Somaliland la kala sheegto qayb bulshada kamid ah oo shisheeye loo arko Somaliland nimadiina waxay isugu biyo shubatay ugu dambeyn mid beelaysan dadka ayaa loo kala qaybiyay isirku Somaliland xuduudka Somaliland dulmiga Somaliland damaca Somaliland iyo halganka Somaliland isagu u haysta dadkii deegaantuba inay tahay hanti uu dagaal ku furtay oon cidiba ku haysan Somaliland waxa gibi ahaanba si warma qabtaa looga baxay ahdi qarameedkii 1991 burco lagu gaadhay ma jiro dastuur lagu dhaqma ciidamada booliska iyo kuwa militariga waxa loo isticmaalaa caburinta cid ka soo horjeeda nidaamka iyo cid kasto saluug ka muujisa jihada aan sumada lahayn ee loo socdo dhinaca mashaariicda waxa iska leh cidda isir ahaan ama arrin ahaan ugu tiirsan doonista xukuumadda mashaariicda waaweyn ay ka mid yihiin qandaraasyada iyo deeqaha iska daa in laga martigeliyo bulshada labada daraf kama qayb aha manaafacaadsigooda siiba gobolada barigu bixinta qandaraasyada dawladda tartan loo galaa ma jirto oo waxa lagu bixiyaa sadbursi wasto xigtaysi qof jeclaysi iyo qol madow oo bilaa makhraati ah warbaahintu waa mid gabtay kaalinteedii oo si dadban iyo si toos ahba u afduuban ma jirto waayaha kala duwan ee shacabka ku habsaday warbaahin ka hadli karta waana sababta shacabku u yihiin bulsho garbaduub u xidhan dulmigu ma laha cid iyo meel looga dacwoodo shaqada saxaafadu haysaana waxay ku kooban tahay gudbinta fariimaha madaxda iyo dadka wax haysta xabsiyada iyo saldhigyada boolisku waa bogcado cadaabeed tacadiyada ka dhacaana maaha kuwa cid wax iska weydiin karto qof dilay iyo tuug wax soo xaday kolka laga yimaado maxaabiista goobahaas ku xidhan waa kuwa u xidhan rabitaan shakhsi oo kaliya aragti gaar ah cabir fikir masabid iyo hafriyo culimada u gaara ayaa qayb ka taasoo lagu raali gelinaya ajaanibta waxana dhacda muwaadiniin in lagu sheego waxaanay ahayn shisheeyahana dhaqaale lagaga qaato taasoo marka dambe ay adag tahay in xataa madaxweynuhu fardaamiyo bulshadu ma koraan manaahiijta waxbarashaduna waa kuwa kobaca bulshada ka dhana oo aan ka turjumaynin baahiyaha dadka iyo deegaanta ilaha dhaqaaluhu cid gaar ah ayay u xiran yihiin ganacsiga oo sida dastuurku dhigayo ahayd inuu ku salaysnaado suuqa xorta wax kale ha joogtay xanjada iyo masaabiirta wax lagu dhiso cid bay kooto ugu xiran tahay Somaliland isku dul noolaanshaha iyo xaaladaha dadan ee ka jira kolka laga yimaado in beelaha darafyadu Somaliland kaga mid ahaadaan xuduudihii ay kala samaysteen gumaystayaashii reer Yurub ma jirto wax uga sii hooseeya hase yeeshee waxa u gooni ah dib u dhac iyo khatanaan wixii la wada yeelan lahaa
waxa xusid mudan in siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolada Sool, Sanaag iyo Awdal ee xilalka lagu aaminay aan loo eegin misaami qaybsi qaran iyo xulashada inay yihiin shakhsiyaadkii matali lahaa mujtamaca goboladaasi ka soo jeeda, balse waxa xusid mudan halbeega ugu sarreeya ee lagu xushaa inay tahay xidid lahaanshaha Hargeysa. wasiirada, saraakiisha ciidan, agaasimayaasha ama siyaasiga ka soo jeeda Sool, Sanaag iyo Awdal ee xaaskiisu Hargeysa ka soo jeeda waxa uu ka fursad wanaagsan yahay siyaasiga deegaankiisa ee haysta kalsoonida iyo rabitaanka shacabka. mas-uuliyiinta xilka xididnimada ku haya oo darajo kasta lehna waxa ka mid ah wasiir faratoonka arrimaha dibadda loo dhiibay, wasiirka biyaha oo isaguna ololihii doorashada uuridiisa labaad kula xididay ardaaga madaxweyne Biixi oo haatan ku ah wasiirka beeraha oo isna dhigta adag ee uu ka laalaada ay tahay minyaradiisa oo ka dambeysay ku biiristiisii kulmiye. gudoomiyaha golaha wakiilada ayaa isna xilihiisa oo Hargeysa u dhalatay ay tahay dhigdhexada adag ee mas'uuliyadda uu hayo inuu qabto dhaqaale badan loogu bixiyay. mas-uuliyiinta xilka Somaliland oo inta ku koobnayn waa kuwa sababta u ah sinaan la'aanta gobolada Somaliland ee dhanka horumarka iyo waxqabadkii dawladeed. shaqaalaha dawladda Somaliland oo ka kooban 15,000 oo qof, gobolka Sool oo loo geeyay Sanaag, Salal oo Awdal lagu daray ma dhamma 800 oo qof. tirada ka soo jeeda siiba gobolada Sool iyo bariga Sanaag ayaan tirada shaqaalaha ee ka soo jeeda aanay dhammayn 200 oo qof, halka Hargeysa tirada shaqaalaha ka soo jeeda ay tahay inta la hubo 9,270 qof, taas oo 8,000 oo ka mid ah ay hal xaafad ka soo wada shaqo tagaan. dheeftii dawladnimada la wada yeelan lahaa oo tabtaasi ah kuma koobna dhibaatadu, tacadiyo iyo cadaalad xumo. waxa taasi ka sii daran gobolada bariga siiba Sanaag iyo Sool dhinaca hay'adaha samafalka waxqabadkoodu waa kuwo laga dheereeyay, waxaana hay'ad kasta deegaankaasi loogu sheegaa inay yihiin kuwa amni darro iyo colaad rafiiq la ah, weliba gabaad u ah waxa loogu yeedho argagixisada. dib u dhacaya kala sarreysiinta bulshada waxa qayb ka ah siyaasadda u badan all schoolka ee garwadeenka iyo nidaamka meesha ka jira ay u arkaan in bulshada la hayn karo kulka la gaajaysiiyo, shay kastoo nololeedna hal meel la isugu geeyo. aqlabiyadda shacbiga Somaliland waqtigan isirka iyo hayb ku ahaanshaha Soomaalinaanimadu iska daa bulshada darafyada jiida dhexe shacabka ku nool waa kuwo quluubtooda ay ka idlaatay. dhanka kale wixii dib wasaawo dhacay waqtigii Siyaad Barre rubco qarni loogu soo sheekeeyana waxay noqotay cajalad laga daalay dhageysigeeda iyo dhawaaq maqalkiisa la necbaysto, waxaana bulshadu su'aal gelinaysaa beddelka dirirtii Siyaad waxay siisteen iyo Somalilandtii filashadoodu ahayd. waxaana muuqata godkii gocashada kacaankii Barre in laga guuray oo bulshadu yar iyo weyn goob joogayaal ka yihiin wixii lagu dhisay iyo sababihii loogu sheegay in SNM u dagaalantay inay maanta 10 jibaar ka badan ay rafiiq la yihiin ayna u weheliso dad iyo deegaanba go'doomin caalami.